إلا الله هذا حق الله هذا حق الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله naxariista waxa degmada xudun ee gobolka Sool asqaran loogu sameeyay Maxamed Yuusuf Guure Soodani oo kamid ah odayaasha degmada xudun kuwada loogu jecel yahay kana mid ah lafdhabarta bulshada waxaana aaskiisa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaal dhaqameed culimo awdiin aqoon-yahano dhalinyaro waxaana ay dhamaantoodba eeba uga baryeen inuu kitaabkiisa midigta ka siiyo oday Axmed Cabdi Jaamac oo kamid ah odayaasha aqoon-yahaniinta degmada xudun ee gobolka Sool ayaa ka sheekeeyay doorkii uu Maxamed Yuusuf Guure Soodani وكلها سويال كتاريخات محمد يوسف قوري سوداني هدان تاريخ دي ستابتو كون يساقال بقول يكونتون يسيديد دي أيو حكونا سيدك مدى حدون قبل كسول صوماليا سوداني وحكو برباري آقد إيريا دك مدى حدون وحو قرصدي حاس يو كتغي يو طوان عرورة لحويل يافر قبلود تاريخ دي ستدام بهدان دي بقول نقضو أباريه كون يسقال بقول يتضبطي دجال كي صوماليا سبن كي إثيوبيا صوماليا دعي دبديسي أبارها أيو سوداني كدوفي دلك صوماليا وحنا هذا السعودية عربية هالكاسو وكم غنا مدة 8 سنة كدو كدبنا وحود بقصون نقضي صوماليا هل كان أيو أنتي بدنا وحوب بدنا عاصمة مقدسو هي مجال حدن شقوين كوسوق فتي سوداني ومجال كسوق فتي وحكمدا وحوها قدوميه دقمدا مدة 7 سنة سوداني waxa lagu xusuustaa oo caan ka ahaa oo dadkaas degmada degan iyo area gobolka Sool ilaa Sanaag ay ku xusuustaan inuu ahaa nin dadka oo dhan aad looga yaqaano ka shaqeeyay nabadgelyadii sida shirarkii ka dhacay nabadgelyada ee kulaal oo ka ahaa xubin aad u culus aadna uga shaqeeyay waxa kale uu qayb weyn laxaad la ka qaatay shirkii nabadgelyada ee ay ku heshiinayeen 4 beelood ee Sanaag dega warsangeli dhulbahante habar jecel iyo habar yoonis taas oo iyana qayb laxaad la ka qaatay Soodaani wuxuu ahaa nin aad nabadgelyada u jecel deegaanka uu ka soo jeedo iyo deegaamada la dariska ah nin aad looga yaqaano aad odaynimada iyo isku wadka iyo maxaan ku yiraahdaa hadii ilaahay idinkeeda leeyahay dhalinyarada waayeelka nin u dhaxeeya oo isku wada buu ahaa taariikhdaas Soodaani lahaa ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariis janno inuu ka waraabiyo ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay uu ka dhigo kitaabkiisa midigta uga dhiibo kuwa loo dambi dhaafay ilaahay inuu ka dhigo baynu ilaahay uga baryaynaa jannata farduus alacla ilaahay inuu geeyo baynu ilaahay ka baryaynaa qabrigiisa inuu ilaahay ka yeelo rawatan min rawdatil janna baynu ilaahay uga baryaynaa dadkii uu ka tagay eheladii iyo inagoo dhan haddaynu nahay degmada xudun gobolka Sool Sanaag iyo Soomaaliyaba ilaahay samiriya iimaanaha inaga siiyo Soodaani inta dabadeed waxaan ka codsanayaa dadweynaha halkan tuban ee ka soo qayb galay aaska ee degmada xudun gobolka Nugaal Sool iyo Sanaagba ka yimi in la saamaxo Soodaani saamaxnaakum war maxaa tiraahdeen ilaahay ha u aqbalo intaasoo islaam ah baa saamaxday waxaa dhintay nin weyn aad iyo aad degmada iyo dunida iyo bee ahaan dhulbahantaba aad iyo aad ugu weyn ninkaasu waxaan u maleynayaa dadka halkan jooga waxaan horta uga tacsanayaa dhammaan ummadda oo dhan degmada xudun Sool dhulbahante gaar ahaan waxaan ugu sii tacsideynayaa xaaskiisii iyo carruurtiisii ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto ilaahay naxariistii ha geeyo ilaahu waxaan kaaga barinay jannadii geed ilaahu qabriga iyo qiyaamaha u nuur ilaahu su'aasha u fududee ninkaasu aad iyo aad baan u saaxiib wahay saaxiibkay dhab ah buu ahaa ninkaasu u malayn maayo dadka halkan jooga mid walaalkiisa iyo mid adeerkiisa nin iga badiyay inuusan jirin ninkaasu masooyinka caanka uu ku ahaa waxa ka mid ah horta wuxuu ahaa nin go'aan adag aad go'aankiisu u adag yahay wuxuu ahaa nin aad iyo aad qabiilnimadu iyo dadnimadiisu ay aad u sarreyso u malayn maayo degmadan inuu ka dhashay kana dhalan doono ilaahay mid khayr qaba oo soo inoo bedela hayna siiyo aaski baanu joognaa nin oday buu ahaa ilaahay u naxariisto
dembigiisii iyo dembiga aabkiisii carruurtiisii reerkiisii ehelkiisii ilaahay samir allah ka siiyo janna fardiso allah ka waraabiyo janna fardiso allah ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul mawt ilaahay waxaan uga baryayaa maxamed yuusuf goore oo Suudaan ku magac dheera oo noo dheer qabrigiisa aanu joogno in ilaahay u naxariisto ilaahay uga baryayaa ilaahu qabriga nuur iyo waasac uga dhig ilaahu qabriga nuur iyo waasac uga dhig ilaahu jannatul firdaws ku macsuuma ku martiqaad ilaahu martidii la jecel yahay ka dhig ilaahu kitaabkiisa maalinta qiyaama midigta uga dhig ilaahu sakaraadkii dhaafiyo su'aasha u fudude ilaahu sakaraadkii dhaafiyo su'aasha u fudude ilaahu intuu ka tagay ehelkiisii iyo qaraabadiisii asxaabtiisii iyo awlaadiisii iyo xaaskiisii iyo walaalihii iyo qoyska reer guura caatay oo dhan iyo tolka ilaahu samir iyo imaan saadiqa naga sii ilaahu samir iyo imaan saadiqa naga sii ilaahu saasaanu kaa barin ilaahu saasaanu kaa barin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم آمين آمين محمد عويل كوتة دقمة حدنا قبل كسول